السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasha iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee ku xiran channelkeeni Kororsa Aqoon waxaan idin soo gudbinaynaa casharo taxana ah oo ku saabsan maadada chemistry-ga gaar ahaan form 1 chapter-ka koowaad aynu ku bilaabaynaa oo ah introduction to chemistry. fadlan dhegeysta haddii aad ku cusub tahay channelkeeni subscribe garay oo share garay si waxa weeyaan ay dadku uga faa'iideystaan. waa introduction to chemistry waa hordhaca chemistry-ga. waxaan kaga hadlaynaa qaybta koowaad science and its branches. science maxaa la yiraahdaa iyo laamihiisa. la wada socono chemistry wuxuu ka mid yahay waa qayb ka mid ah physical science ayuu ka mid yahay. marka waa inaan marka hore science-ka aan qeexnaa. The word science came from Latin word scientia. ereyga science wuxuu ka yimid erey Latini ah asal ahaan oo la yiraahdo scientia. That means knowledge oo laga wado aqoon. Science hadaa maqasho waa aqoon baa laga wadaa. haddaynu qeexno science maxaa la yiraahdaa. Science is the study of nature. Science-ku waxa weeyaan waa barashada dabeecadda weeye ama koonkan barashadiisii weeyaan. And behavior of physical universe. muuqaalka dunida dabeecadda ay leedahay waa cilmiga lagu barto weeye. waa cilmiga lagu barto muuqaalka dunyadan qaabka ay waxa weeyaan u dhaqmayso, waxyaabaha dunyadan yaala, behavior-ka ay leeyihiin, dabeecadaha ay leeyihiin, cilmiga lagu barto ayaa la yiraahdaa science. Based on scientific method iyadoo lagu base gareynayo ama lagu saleynayo hab sayniseed iyadoo lagu base gareynayo. The knowledge of science has been developed by the application of scientific method. aqoonta sayniska waxaa horumariyey oo ay ku horumartay hab sayniseed. oo saynisku maanta science ayuu iska ahaan lahaa haddaan application la sameyn lahayn, la dhaqangelin lahayn oo practical la sameyn lahayn. practicada la sameeyey ayaa waxay ogolaatay in waxa weeyaan saynisku uu horumaro oo waxa weeyaan warshaduhu ay wax soo saaraan, ikhtirac la sameeyo iyo wixii la mid ah. There are three main branches of science. Sayniska laamihiisa ayaan halkan ka gelaynaa. waxaa jiro 3 branches ama 3 laamood oo sayniska loo kala qaado. waa social science, waa saynis ka hadlaya bulshada. waxa weeyaan sida people, dadka, culture, dhaqankooda, societies, bulshada iyo wixii la mid ah. waxyaabahaas oo dhan cilmiga ka hadlaya la yiraahdaa social science. maadooyinka social science-ka lagu diraasay waxaa ka mid ah geography-ga, history, taariikhda, law, qaanuunka, kulli waxa weeyaan social science-ka ay hoos tagayaan. formal science waxaa jirto aqoon la sawirayo ayaa jirto oo waxa weeyaan qaacida leh oo sabuurada lagu qorayo. waxaa ka mid ah maths, xisaabta ka mid ah, logic ayaa ka mid ah, logiga ayaa ka mid ah waa waxyaabaha xisaabta ka mid ah iyadana logiga la yiraahdo. sheegan maxaa logic u ah, macquul ah iyo wixii la mid ah. natural science waxaa jiro sayniska dabiiciga ah. sayniska dabiiciga ah saynis la yiraahdo ama aqoonta dabiiciga ah waxay ka hadlaysaa physical world, muuqaalka dunida ka hadlaysaa. natural science waxaa loo kala qaadaa 3: life science, earth science iyo physical science. life science waa aqoonta ka hadlaysa nolosha, waa noolaha ka hadlaysaa, waa living organisms ka hadlaysaa, nooleyaasha sida biology oo kale noolaha ka hadla, ecology oo kale noolaha iyo deegaankiisa ka hadla. waxaa kaloo ka mid ah earth science, science-ka ka hadlaya dhulka. wuxuu ka hadlayaa dhulka ayuu ka hadlayaa earth, atmosphere cimilada uu ka hadlaa, space-ka ayuu ka hadlaa. maadooyinkaas waxaa ka mid ah marka oo lagu diraasayo earth science-ka. geology ka mid ah, cilmiga la yiraahdo geology-ga, meteorology ka mid ah, astronomy-ga ka mid ah, chemistry-ga ka mid ah. cafwan chemistry-ga kuma jiro. waxa weeyaan waa waa geology, waa meteorology iyo astronomy.
chemistry waa arki doonaa asaga wuxuu ka mid yahay physical science ayuu ka mid yahay. Physical science asagana waxaa la yiraahdaa wuxuu ka hadlayaa matterku ka hadlayaa walxa, energy tamarta ka hadlayaa, physical properties of the universe waxyaabahan oo adduunka yaala astaamahoodii muuqaalka ayuu ka hadlayaa. marka physical science kan u soconaa adeer waxaa ku abtirsado chemistry-ga ayaa ka mid ah. marka chemistry-gu marka waa branch ka mid ah science-ka, gaar ahaan physical science-ka ayuu ku abtirsadaa, waana natural science. marka haddii lagu weydiiyo chemistry-ga qaybtee ayuu ka mid yahay oo science-ka uu ka mid yahay, waxaad leedahay waa physical science ayuu ka mid yahay, weliba natural science ayuu ka sii yahay leedahay. waxaan kusoo gabagabeynaynaa casharkeennii qaybtan ah scientific method. aqoonta science-ka waxaa horumariyey baynu niri hab oo waxa weeyaan scientific ayaa aqoonta science-ka uu ku horumaray baynu niri. Scientific method maxaa la yiraahdaa? Is a set of procedures that scientists follow in order to gain knowledge about the world. waa koox oo process oo la maro kaasoo waxa weeyaan oo saynisyahanadu ay isticmaalayaan si ay u helaan aqoonta ku saabsan dunida. aqoonta ku saabsan dunidana aqoonta taala si loo helo processka loo maro ayaa la yiraahdaa scientific method. waana 4 shay ka kooban tahay. qofku markuu shay uu waxa weeyaan aqoon uu ka qaadanayo ama uu baratikeynayo wax ka soo saarayo 4 process oo mara. scientific methodska 4 weeyaan. waxaa ka mid ah making observation. qofku waxa weeyaan inuu sameeyo observation, inuu sameeyo indhayn shaygan oo rabo inuu ka hadlo ama inuu tijaabiyo, waa inuu observation marka hore uu ku sameeyaa, uu indhayndeeyaa. marka observation la sameynayo 2 shay baa la fiirinayaa, quality iyo quantity. shaygan tayadiisa iyo tiradiisii ayuu qofku marka ugu horeyso ayuu waxa weeyaan uu tijaabeynaya. quality iyo quantity sidee lagu ogaanayaa marka tayada iyo tiradiisa? quality tayada waxaa lagu ogaanayaa sense, waa la dareemaa shaygan haddii la taaban karo, haddii la urin karo, haddii waxa weeyaan la dhamin karo, saasaa lagu ogaanaya marka ugu horeyso. quantity tiradiisna waxaa lagu ogaanayaa, waa la miisaamaya, waa la cabirayaa, saasaa lagu ogaanaya. marka shayga aad rabto in aad qaab science aan uga hadasho oo aad warbixin ka bixiso ama aad ka diyaariso note ama aad theory ka keento, waa inaad marka ugu horeyso aad heshaa observation aad ku sameysaa, indhaindhaysaa. tayadiisa iyo tiradiisa waa inaad taqaanaa. 2 formulating hypothesis. waxyaabaha hypothesis la yiraahdo oo mala awaalka ah oo adiga aad ka qabto in aad formulate gareydo oo aad qaacideyso oo aad qorto. tusaale mesela waxaad rabtaa in aad oo maskaxdaada ay ku soo dhacday metals react with acids. birta waxa ay la falgashaa acidooyinka ayaa tiri. birtu acidooyinka way la falgashaa, waana sax. warkaas markaad rabto marka inaad dadka u sheegto waa inaad formulate gareydaa. marka designing experiment ka bacdi tijaabaad sameynaysaa marka oo aad ku naqshadeynayso arrinkaaga. marka oo birta in acidka waxa weeye ay la falgalayso ayaa tijaabo ku sameynaysaa. marka bir baad soo qaadanaysaa, weel baad ku ridaysaa, acid baad ku daraysaa, ka bacdi waad fiirinaysaa wixii aad aragto. markaad aragto marka inay wixii ay sax noqdeen ay la falgashay oo markay isla falgalaan gas baa baxayo. ka bacdi making conclusion gabagabaa sameynaya marka oo ah theory, aragtiyaa ka diyaarinaya. scientific law, xeer sayniseed baa ka diyaarinaysaa. marka waxaa leedahay markii birta iyo ay isla falgalaan acidka waxay soo deynayaan gas ay soo deynayaan. marka dhageystayaal daawadayaal casharkeeni maanta halkaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.